ويكبر صعدت الحدى وقلت قولي وبابروها وبلعبي أبكي ضحايا بالنهاية وبايبروها ويكبر صعدت الحدى وقلت قولي وبابروها بصدر الميت بصدر الميت بصدر الميت kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka VOS ku soo dhawaada barnaamijka Saaka iyo VOS qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamo ka tirsan gorgor oo tababar lagu soo dhameeyay dalka Turkiga ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho wasiirka gaashaandhigga iyo taliye-ku-xigeenka ciidanka oo warbixin ay ka dhigaysteen ciidankaasi iyo sidoo kale qodobadii ay jeediyeen ee daawan doontaan maamulka gobolka Banaadir waxa uu shacabka Muqdisho ku soo rogay amar la xiriira xakamaynta caabuqa COVID-19 wafdiga Soomaaliya ku matalaya dacwadda Kenya kala dhaxaysay dhinaca badda oo gaaray magaalada Hague ee dalkaasi Holland shalay ayay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho waxa kale oo aad barnaamijka ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad sanadeedkiisii jeediyay kaga hadlay doorashada Soomaaliya arrimaha Soomaaliland iyo sidoo kale wada hadalka dawladda federaalka iyo Soomaaliland qodobada ay kuwa kale daawan doontaan mar kale iyo Saaka iyo VOS أنا كبلو إن داود يعلم مجالات المقشة وحالي سو جاري عندما كترسن كوا جرجر جوتة تضبي تبناد وحنا أي عيدن كاسي جاريين دور بقول يدو هالكاسي كوسودوين سراكيل كم إذا الدولة الفدرال كاي سوماليا وزير كجاشانيك سوماليا سراكيش حوج الدلكا أو عيدن كاسي كل ماي جرون كديار ده هذا عدم مجالات المقشة يا قد بدو جديه هالكاسي وحنا كجال هذا لين تبارك عيدن كاسي يقول دردار مع عيدن ماذا جرجر الدلكا دي بقول صلابتي أنت هالكان اللي جوكتو marka labaad ilaahay baa mahadsan maanta inaad dalkiina aad ku soo laabataan idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina qarankiina dawladdiina u shaqaysaan waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheena Turkiga dawladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyay haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyay inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo tababarkaas diyaar garowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyada dalkeena midnimadiisa inaad sugi doontaan waa la aaminsan yahay dad dhalinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo heleen iyo fursad ay heleen daraadooda waxaan rabnaa insha Allah inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan anagana dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno ciidanka dhisno dawladda oo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin way adag tahay sidii ay ku noolaato asaaskii dawladnimo waa ciidankeena oo dhismidiisa waa bilowday waa socdaa dib u habeyntiisa waa socotaa xuquuqda ciidamada in la helo waan ku dadaalahaynaa insha Allah waa guuleysanaynaa ilaahay baan ku tiirsanaynaa ciidankeena ku tiirsanaynaa waana dadaalaynaa insha Allah waxaan leeyahay Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha noolato Soomaaliya ha noolato ilaahay ha barakeeyo waa mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay insha Allah bariig laga bilaawdo shaqadiina aad bilaawi doontaan marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaad u gudataan in alla intii ka soo qayb gashay soo tababartay ولنا دبجوكتا تاجرتا هذا يوم هسنيهين وقدام بنتي سلامة مدحوينها iyo ra'iisul wasaaraha iga godoma
dalkiina ku soo laabtaa si daacadaan ugu shaqeeyaa waana salaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha noolaado gorgor ha noolaadeen gorgor ha noolaadeen dawladda turkiga oo walaalahaya ha noolaato waxaa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin annaguna waa faraxsannahay adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba waddankiinnii iyo dadkiinnii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay annaguna waxaan ku faraxsannahay ciidankii aan dirsannay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey labadaa farxadood oo kulmay guul guul soomaaliya guul waxaa jooga wasiirkii gaashaandhiga ma raba inaan ku dheeraado dawladda turkiga oo tababarkaan idin soo siisay waxaan maanta u awoodnaa waxaa weeye inaan wadnahayaga iyo qalbigayaga ka jeclaannoo siinno taasaan u awoodnaa waana siinaynaa insha allahu xilligay gaadhana waa u abaalgudaynaa haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya ha noolaato waxaan salaan idinkaga wadaa anoo ah taliyii ciidanka dhulka taliyaha xoogga iyo ku-xigeenka taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed oo idin soo salaamahayay hawshaan aniga ii soo wakiishay aad baan idinkugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan idinkaga digo koronafayras baa waddanka ku jira taxadara dadka aad u tegaysaan iyo xaafadaha aad tegaysaan iyo meelaha aad tegaysaan intaba aad u taxadaro is-ilaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa amarro cusub duldhigay dadka ku nool gobolka banaadir kuwaas oo ay ka mid yihiin xidhashada facemaskiga ama afxirka iyo sidoo kale in dadka aanan xidhan la ganaaxi doono gaar ahaana dadka lagu arko goobaha ay dadka isugu yimaadaan gudoomiyaha gobolka banaadir oo meertaasi akhrinayay ayaa waxa uu yidhi waxaa laga hadlayaa inayan ahayn wax caadi ah waxyaabaha laga hadlayo oo maantay shirkeenna jaraa'id uu ku saabsan yahay waxa ay tahay khatarta ay wajahayaan bulshadeenna Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho marar badan ayaan ka hadalnay aan la dardaaranay bulshada laakiin waxaad moodaa dardaaranku inuusan bulshadeenna ku socon maantay markaa bal inaan mar kale muujinno khatarta jirta dardaaran wada jirna aanu soo jeedinno sidaas ayay tahay ujeeddada kulankeenna maanta waxaad ka wada dheragsan tihiin cudurkan COVID-19 ama coronavirusku inuu ku faafay guud ahaan dunida waxaad og tihiin dadaal la sameeyey dalal uu aad u halakeeyey dadaal badan oo ay sameeyeen darteed inay ka bogsadeen oo maanta aan laga helayn xitaa hal kiis inaan laga helayn waxaad og tihiin kuwa uu aad u dilooday welina sii dilaayo inay jiraan waxaad og tihiin COVID-19 inuu bilowday 2019 dabayaaqadeedii aadna uu u darnaa 2020 halkaanna wuu soo gaaray xilligaas dadaal midka hadda socda ka badanna la sameeyey lagana bogsooday dhab ahaantii dadaaladaa la sameeyey waxaa ka mid ah in duulimaadyada la joojiyey ayaa ka mid ahayd in la sameeyey xarun karantiil oo dadka safarada ku yimaada ama dadka isaga shakiya cudurkaas lagu xareeyo ayaa la sameeyey dadaalkaas marka intaas kaliya ma ahayn waxaa la buufiyey magaalada oo dhan ayaa baabuur waaweyn lagu buufinayay wacyigelin wasaaradaha hadda gadaashyada taagani ay ka wada qayb qaateen ayaa la samaynayay ambalansooyinka dabdamisyada yacni dhallinyaro wadata yacni haamo dhabarka ku wadata waxaasoo dhan waa laga wada shaqaynaya dadaalkaas ilaahay subxaanahu watacaala mirihiisa uu soo bixiyo waa laga bogsooday isagoo ka khatarsan ayaa weyfkii ama hirkii labaad ee adduunka ku soo noqday ayaa haddana mar kale soo gaaray dalkeenna gaar ahaan magaalada caasimadda ah arrintaas ayaan ka hadalnay maantana ugu talagalnay si intii hore ka qaylo dheer inaan bulshada gaarsiino bulshada waxaa looga baahan yahay marka aan u sheegno khatarta jirta talooyinka la siinaayo
ومع وزارة عافمات أي بحنيسو أما جودهان مسؤولين الدولة أي بحنيان إن يودع نقلادان أو أي قاتان سلاس أيام الدنيا مثلا مركو هوري وحل يري قوبها جناحسيجا حلقة إلى ليو دتك كأديجن ياهي إني فيس ماسك أما أفحر الآن إني جلاني كأديكتا سوقي دواسدو كله دتك قوبة جناحسيجا وحكو إيبنا يانا إني أيقون سدو كله أي أفك حرتان أو أي أسود دوان أو قامها أنا لا نغضب وعيقلنتو إنتاس أي هاي واسيب بدأتي مركا كيسسكي أما دتكي عذرك وسود عاي وحال حري جامعته يسكول دي وحال الجوجي لما نقوبه لسوء إيمانا سيدي أروسيدا أيو مالكستو بولشدا يسوء إيمانا وحال حدي خطرتو أي سي سعوتو وحال حري دونات دولمات يدا لكن إلى هذا الدولة قوار مقادا لغو حرايا الدولمات يدا محايا لي وحال الرجينيا إني دادكو ودقا نقلادان وعيقلنتا إيه تلوينك عافمادا مرول بالله بحناي ولي waxaa jira iskuuladii la yiri hal xiro qaar furan ayaa jira waxaa jira dadkii la yiri marka aad wadada maraysaan ama aad BL ama bajaad raacaysaan aydin xirnaado wali uma xirna goobihii usu imaatika qaar wali la isugu yimaada dad badan ayaa wali jamaacada ku ooga masaajidada qaar badana ka weysaysanaya masaajidada oo la yiri kusoo weysayso gurigaaga sajaadada yare lagu dukadana adiga hore u soo qaado waxa soo dhan waxay ahaayeen hana yaani jamaacaduna ha kala fogaato oo yeysan isku dhawaan talooyinkii la baxshay ayay ahayd laakiin haddana waxa laga qaatay culimo iyo caami waayarta waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhiga nuglaado maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimadu masaajidka ay ku tukato meeqa qof ayaa maalintii janaasa lagu tukadaa awalse meeqa lagu tukan jiray mar haddii ay sidaas u muuqato waxaa loo baahan yahay sadar muuqda su'aal ka dhane inay dadaalada iyo talooyinka la bixinayo ay qaataan oo masaajida laga qaato oo jaamacadaha laga qaato oo laga qaato iskuullada goobaha caafimaadka iyo dhammaan goobaha ganacsiga iyo bulshadoo dhan in la qaato haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay kadib weli ay soo taageen dadka maxaa la sameynaya dadka waa in la ciqaaba imaanaysa ciqaabtu maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dadka ayaan dhaweyd kowdii March marka arrinta ka hadlaynay kowdii bishaan waxaan niri isbuuc kadib ayaa ganaax bilaaban doona haddana markii madaxda dawladda saragtay waxa la yidhi isbuuc kale ha loogu sii kordhiyo marka 15ka bishaan ayay bilaaban doontaa ganaaxaasoo qof awaamiirtii la siiyey ama taladii la siiyey khilaafay aan laga dhaafi doonin hadduu yahay goob ganacsi iyo hadduu yahay qof BL ama bajaaj saaran ama qof wadada maraya dhammaan bulshada Soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doona qof kastoo talooyinka caafimaad ee la bixiyey jabiya waxaa la rabaa marka in laga taxadiro waxaa loola jeedaa ganaaxaas inay dadku ganaaxaas iyo ciqaabaadkaas ay ka cabsadaanoo ay laazimaan talooyinkii la siiyey marka ujeeddadeennu maanta intaas ayay ahayd bahda meediyaha maadaama maanta intooda badan ay joogaan ayagana waxaan ka codsanaynaa waxa dhammaanaya waa dadkiinni oo aad aragtiin mar walba inaad markaa meediyaha adinku aad leedihiin hadduu yahay raadiyo hadduu telefishin yahay haddii website wuxuu yahay ha ahaadee inaad kaalintiinna ka qaadataanoo aan hawsha lagu soo riixin dawladda oo kaliya maxaa yeele waa wax u baahan dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay si isku mid ah ugu gurmato arrintan waa masiibadu marna waa mid aadanuhu sameeyo sida qaraxyada oo kale marna waa mid minallaahi ah marka dhammaan masiibooyinkaas ayaa loo baahan yahay aragti isku mid ah iyo dadaal isku mid ah in lagu wajaho oo aan cid gaar ah laga sugin maareynteeda magaalada Muqdisho waxaa ka ambabaxay wafdiga Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda ee ICJ taala ee kala dhaxaysa waddanka Kenya wafdiga shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho waxaa hogaaminaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ahna wakiilka Soomaaliya ee
dacwadda badda ee Kenya kala dhaxaysa Mahdi Maxamed Guuleed Khadar waxaa kaloo ku heliyay xiriiryaha guud ee dalka iyo sidoo kale xiriirlaalihii hore iyo Danjire Yusuf Garaad Cumar ra'iisul wasaaraha iyo xiriirlaalyaha guud ayaa warbaahinta kula hadlay Muqdisho intaanay u duulin magaalada Hague ee wadankaasi Holland si ay halkaasi uga qayb galaan 15 bishan dhageysiga dacwadda badda wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saaka waxa farxad loo ah aniga iyo wafdiga ballaaran ee aad jeedaan inaan u ambaxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd dhageysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo caddaymaha waxa ay soo dhammaatay 2018 December 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaaran baa laga qabtay waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan markaa dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo caddaymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019 2020 iyo ilaa hadda waxa aynu sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeen taasoo halgan dheer iyo doodba kadib mas'uuliyadda dowladda ee u xilsaaran madaxweynaha ummadda ra'iisul wasaaraha iyo sharciyaqaanadii iyo qareennadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu go'aamisay 15 bisha Maarch oo aynu hadda ku jirno in la dhageysto doodda afeed ee dacwadaha maxkamadda arrintaas hadda ayaan u ambaxaynaa mas'uuliyiintan ay u jeedaan waxa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhageysiga dacwaddu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinka soo jeedinayaa maadaama halgan ummadeen iyo halgan shacab ay tahay dacwad taariikhiya ay tahay halkaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15 16 17 waa la nasanayaa 18 iyo 19 shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gashaan si live uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhageysataan oo u adorestaan oo u faaqidaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idinkiisa inaan ku guulaysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhageysiga dacwaddan la isugu yimaado sababa jira awgeed iyo cudurka COVID-19 2019 saddex goor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwaa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allahu saakaannu u ambabaxaynaa 15 ayay bilaabmanaysaa dhagaysigeedu ilaa 19 waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halgankaa taariikhiga ah ee wadaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno kaalinta miidiya haddaad tihi saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladdaba idinkaga aadan ee aynu ku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan guul baan inoo rajaynayaa waa mahadsantihiin maalin walbana warbixin waa idin soo siin doonnaa insha allahu tacaala sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay ujeeddada safarkeena maanta waa ka qaybgalka dood afeedka dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa oo ay maxkamaddu horay u go'aamisay horeyna u diiday isurtaagii Kenya ee samaysay ee la xiriirsanaa dacwada badda isurtaaga markuu soo baxay la socotaan dowladda Kenya marar badan bay isku dayday oo codsiyo u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka si ay keeska u dibdhigto laakiin dowladda Soomaaliya aragtideeda iyo go'aankeeda
markasta wuxuu ahaa in aan dood afeedka u dambeeya aan la dibdhigin xilligiisiina uu ku dhaco waxaan intaa ku darayaa badda Soomaaliya waa qayb ka mid ah gobonimada Soomaaliya iyo sovereignty-geeda sovereignty-guna waxa weeye hawl iyo shay uu ilaaliyay dastuurka ku-meel-gaarka ee Soomaaliya cutubkiisa koowaad qodobka 7 oo tilmaamaya in gobonimada Soomaaliya ay tahay wax aan lagu xadgudbi karin lana qaybin karin cidina aan laga ogolaanin inay taaka in la ku xadgudubto maadaama ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin ilaalinta iyo dhowridda gobonimada Soomaaliya iyo u daadinta dhiig kasta oo gala sida ka warhaysaan kiiska badda Soomaaliya wuxuu yaalaa maxkamadda cadaaladda adduunka maxkamadda cadaaladda adduunka Soomaaliya waxay xubin ka noqotay 1963 oo aad dareemi kartid 3 sano kadib markii aan gumaysiga ka xorownay baa waxaan ku biirnay maxkamadda cadaaladda adduunka ujeedada ay Soomaaliya ugu biireysay waxay ahayd in ay muranada noocan oo kale tahay hadii ay yimaadaan inay si hab caalami ah oo nabadgelyo ah ay ku xaliso muranada kala dhaxeeya dawladaha kaleeto marka maadaama ay Soomaaliya xubin ay ka tahay maxkamadda cadaaladda adduunka go'aankeedana uu ahaa in ay muranada noocaas oo kale tahay ay geyso dawladda Soomaaliya waxay dacwada badda geysay 2014 marka dacwada la geeyay 2004 waajibaadka naga saaran charterka UN-ka oo tilmaamay asagana muranada dawladaha iyo nabadgelyada caalamiga ah la xiriirsan in lagu xalliyo qaab nabad ah oo peaceful ah waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in dawladda Soomaaliya madaxweynaha uu hogaaminay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaysan ka hagranin waqti maal maskax iyo wax kasta oo lagu badbaadin karo badda Soomaaliya iyo gobonimada Soomaaliya madaxweynuhuna uusan marna ka mashquulin arrinta badda iyo hagida keeskan u baahan yahay iyo tilmaamaha u baahan yahay in la dhameystiro waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay xeerarka caalamiga ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay xeerkaas kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay ratification-keedana ay sameysay 1989 xeerka wuxuu tilmaamayo waxay ku dhisan tahay qareenadana doodeeda waxay ku dhisan tahay in Soomaaliya ay dalbanayso in xariiqdinta iyo go'aamada ay gaarayso ummadda lagu saleeyo mabaadi'da waaweyn oo ka mid yahay equal distance oo ku calaamaysan kuna dhex jira xeerka badda caalamiga badda keeska ay Soomaaliya geysatayna waxa uu ku tilmaaman yahay asagana qodobka qaybta 15aad ee xeerka badaha caalamiga waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu guuleeyo ummadda Soomaaliyeed ay maqasho war farxad leh maadaama ay horay dacwooyinka hordhaca ahaa oo la xiriirsanaa isurtaagyadii ay keentay dawladda Kenya lagaga soo guuleystay waxaan rajaynaynaa gabagabada inaan guuleysano dhammaantiina waxaan idinka codsanaynaa in ducada iyo wixii garab istaaga loo baahan yahay dawladda in lala garab istaago madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka doorashada Soomaaliya ka taagan iyo sidoo kale wada hadalka dawladda federaalka ah iyo Soomaaliland sidoo kale waxa uu Muuse Biixi Cabdi sheegay in maxkamadda ay la tiigsan doonaan isla markaana ciqaab ka adag mid hadda ay wajahaan ay u dejin doonaan dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee xilalka u raadsada dawladda federaalka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iskaashi iyo wada qabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba soddonkii sano u dambeeyay fagaaro kasta oo taganiyo dawlad kasta oo hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika ah midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farquluman qaarada tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taa lagu warjo saadartay waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawl galo deetana sanadkii u dambeeyay xoog badan baan saaray Afrika san ugu yeeran lahay saaxiibo cusub waxaan ku buurisay inaan dhammaan dawladaha Afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay
ay ku caddahay inaanu u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska africa meela joogaanba dhammaantoodna ay heleen waxaa nagaga soo noqday in naga aamusta waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad intaa ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibbo ku qancay ama hore ogaa inay Soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dowladdoodana aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidaan in badan oo weyn taageero ka helay walaalayaal waa ogeydeen marka ay safar u baxnaba colaadda xamar ka bilaabata taadii baan ka qadi doona afrikada aynu xuduudaynay ama aynu warrabaynay waxaynu xoog saaray waxay ku soo dhamaatay oo afrikada ku riixdaa mar walba idinkii Soomaalidu hadda waxaan ku nahay gar maaha nintiisiba u taag waayo tashan waayay oo isaga toosifoodo tahay tii hanagu xidhida idinba kan caalweeyay waa noqotay qasb in la hadlo wada hadalladii inaga iyo xamar naga dhexeeyay mid taagnaa baan dib bilownay wada hadalladaas waxay ku dhamaadeen halka baray waa ka degsantii waxaa warihii noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen anaan ku raacay oo naan diidan marka hore in Jabuuti lagu qabto fagaara lagu hadlayo shirka waxa weeye Mareykanka oo uu dadajiyay shirka qolada Jabuuti waxay ka ahaayeen gogashay dhigaan jeerkana way hayeen waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti inay saddex dhexaadnimo ah oo waayaranimo shirka ku hogaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wuxuu leeyahay ay si wacan meel isku cabiri karo dagaladayska kana u dhigeen wixii ka dhacay iyo sidoo ahaa idinku cilmaayo oo goobjoog u ahayd waxa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo communique-ga u haysaano idinku cilmaayo taa waxaan u sheegayaa waxa ka horeysay geni oo sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu lamid ah oo ka dharsan aqoonta Soomaaliland dhibaatada inay doortay haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegeen imika laakiin u baahan in la isku siino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dal baa casumay ama dal ilaahay meelo sheegatay waxa la yaab leh cadaawada iyo naca iyo talaabooyinka ay qaatay iska jira xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonkaas oo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maaranto walaalayaal waan idin baahannahay dal isku mid ah waxaan weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xashaan lili ka xasi xumi waaya nin baa ku sooriyay nin baa ku kalaameeyay dawlad baa hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka taliya sheegayaan ninka walaalka kalaameeya ee sharfa adigana ku sharfay inaad ma hadaqdaabahay laakiin waxay moognahay wixii dhacay ninka Soomaaliland kalaameeya ama wax la qabta inuu dhaw waan ku dagaalamaya oo cadaawad baan ka xigaa Soomaaliland waxaan leeyahay warkaayo qoladaas kuma dhacayo dawladaha ina karaameeyo wuxuu ku dhacayaa waa inaga dadka waxa loo quuraya waa Soomaaliland waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland maanta waliga sheegaan Muqdisho dadka ka taliya shacbiga Muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha Muqdisho way ogyihiin waan arkay waxa dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalnimo ay keenaan talaabooyinka ay qaadaan waxa weeyto aanay Soomaali warigeed isku imanay iyo cadaawad warigeed ala kala geeyay iyo wax aan la isku quurin hebelow ninka asaad salaantana walaalaanahay milga iyo sharaf iyo bogaad buu ka mudo وأوكي كيري وحكي دعي وأركي سو وحكي دعي قريب شوتي وحكي دبي كتب يسوي وغيدي شركة قبضتين يقول يبتين هذا ودي أي لوج يستوي واحد لوج سيد أن درنا كيري وغيدي هذا حاب أضبط شوتي هذا حوالي شوتي كرسوروها وفتقوا دم هذا سلام بنا وده ونا وفتقي سعود نح إلى هذا سكاي تاي
maalin qura anaga gacan gaar muusi fagaare ah nin wala wax sheegay sheegay haddana wixii ka dhacay dambood waxaan intaa ugu dheeraanay maanta Muqdisho dawladii hore waqtigeedu u dhamaaday dawlad cusubna lama dooran sharcina uma kordhin haddana waa fadhiya waa maamulaya Soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato oo tii halka cirdiyaarka ay kama soo jeedaan soddonkaas sano waxay arkay wax la shaqay kara ma hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninka maanta Muqdisho jooga waqtigiisa u dhamaaday sharciga uma kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo kamid ah oo mar walba idaacada laga hadlaa waxa la isku haystaa baarlamaankii gobolada waqooyi matalaha cid soo dooranay cadaawadii hore iyo tii hore dhacdo waxa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof waliba maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matalaha baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hal ay sheego shacabka xamar iyo dadweynaheedu iyaga abaaftood hore oo sheegay waxa lagu sheegayaa caalamka waliba xubnaha xamar la jooga ee Muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halka ay ka joogaan xamar maanta ma dawladda istawaayo ma iyaga u taliya ma kii dhacay ba haysta ma cid kale loo dhiibay waxa uu sheegaynaa waxa gardarro in xitaa kuwa caalamka u dhageystaan ay ka dhageystaan oo ay ku ansixiyaan boqol oo baarlamaan laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka gardarro soo yeeray waxa kamid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqooyahanka Soomaaliya ee Soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda noo tali nin dalkiisa ka fakadka ah waradina idin turi maayo wax idin maayo kana uu ka fakaday marka iyaga laftooda say u aqbalayaan waxa cod idin sina wax idin dooray wax idin bedelaya niman cidna ma tiri qolada Soomaaliland u dhalatay ee halka wax ka jeedinsan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xaga laga doortaa ceebid ku tahay midba deedaysan midba xaga u marsan ma bari hidda lagu doortay halka wax ka tagnaad wada ka caray taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagu dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxa inoo galay waxa inoo fudaatay in la yiraahdo waa habar uu ka soo noqdo afis uu doonaya dabtana la soo hor qaadaya waa nin weyn oo dalkiisa ku soo noqday hala saamaxay hala saamaxay haddana uu noqday kii la saamaxay baa noqday mid ka taliya meesha aqli ma qarnimada meel ka dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqayaa ku talagalay waxa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhaxaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadi'da koobaad tirarkaas siday laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini'aadamka inay ixtiraamaan ayaka tashiga ummadeed Soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sano u dambeeyay jimcada qurba ka dhaxaysa say sagad inda tirayso qadiyada Soomaaliland oo guriga baar ogtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay Soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Soomaaliland sharciga loo aasaasay oo garabarayso waayo Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa qaatay markii ay duntay dawladdii midnimo qaran lagu heshiiyay 60kii ay labadii dawladood ee xorta ku kulmeen markay duntay Soomaaliland iyadoo isu dhan masiirkeeda inay dawladdu u dhisanto oo 60kii soo celiso 18kii May 1999 jimciyada qurba ka dhaxaysa way ogtahay xeerkii hore lagu midoobana way ogtahay Soomaaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii Afrika muran kama jira inay oo waa la wada ogyahay Soomaaliland inay ahayn dal goosanaya oo dalka go'aya hore u dhacay taasoo kale Senegal iyo Mali way kala baxeen Gambia Senegal way kala baxeen
مصر iyo Suuriya way kala baxeen sababta Soomaaliland ay indhaha uga qarsanaysaa jimcada Roma ka dhaxaysa iyo xubnaheedu ee looga ku heshiiya maanta waa weydiinaynaa ninka matalaad jimcada Roma ka dhaxaysa James Wan ee jooga xamar halku ilaahay in mid u heshiiya isaga maamula isaga la heshiiya yaa maamula la heshiiya soddon sano cid ma mushamar meeshu cid heshiiya labadii dawladood ay ka duntay TBS markay kala baxeen Soomaaliland waxay qaaday jidkii nabadda dawlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dawlad iska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fawdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhamaanay waxa la yaab leh dawlado badan oo maanta dawladda way magac ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dawladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awood nolosheed waxa isweydiin leh marka laba dawlad ay ahaayeen ay ka duntay ay kala baxeen dawladaha caalamka iyo jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee billions waxa la 100 bilyan baa galay Soomaaliya ilaa 1990 100 bilyan Soomaaliland bilyan ma galay wax marsiisay aan la siyaanay ciidan loo masruufo baarlamaan loo masruufo ee qadiyada dawladda loo masruufo intaba alxamdulillah shirkooda isku tashadoo haddana waxa lagu dardalaa inta waxa la qaar baa hub ku dardalaya oo darkiisa waxa la isweydiinayaa Soomaaliland isweydiinaysa oo jabcida quruuxa soo weydiinaysa iyo kuwa taageeraya ma waxa la dawladdu caalamku uu taageeraya fawdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageeraya cidda jidka hayaysan qaadeen dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su'aashan waxa uu sheegay jibada quruuxa guud ahaan daawadayaal barnaamijka Saaka iyo VOS waa inaga inta barnaamijkan kan xigeentan ku kulmayno nabadgelyo